بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وأحمد. درس كان إن شاء الله وحرمنا إن قادنا quadratic equations محيهين بالفهم كذا جود سيدا ذا quadratic equation هداد مقشو وقاب كان equation كي أقرن x square plus x plus c يعني واحد laga wada waxay tahay hadda meeshaan a ayaa ku qoran x square plus bx plus c yacni wax walba oo qaabkan u qoran a iyo b waa raqamyay noqonayaan nambaray noqonayaan c-na sideedaba waa number ama constant waxay sidan formkan u qoran oo dhan haddaad aragto waxaa la yidhahdaa quadratic equation marka graafkeeda suu noqonaya ama xuluusheeda iyo rootskeeda say noqonaysaa waxaan rabnay inaan fahanno waa taas sideedaba horta waxaad ogaataa quadratic equationka mar walba waa xiriir ka dhexeeyo y iyo x labadan x iyo y xiriir ka dhexeeya weeye marka mar walbana waxa la raadinayo waxay tahay xuluusha ama rootska x ayaa mar walba lasoo saaraya si markaas qiimihii y loo helo okay maxay noqonaysaa bal graaf ahaan marka la fiiriyo waxay noqotaa sidaa inay u samayn tahay qaab ahaan sideedaba waxaa englishka waxaa lagu dhahaa parabola la dhahaa yacni waa sidan inay tahay oo yacni wax sidaas u wareegsan oo kale wareeg aan dhammaystirnayn ama hoos ha fiiriyo ama kor ha fiiriyo marka mar walba oo x ay taabato kan saan ognahay kan waa x maxwar x y sooma kanna waa y axis mar walba ood aragto equationkii lagu siiyey ama mucaadaladii lagu siiyey oo x taabanaysa hadday laba nuqto ka taabato laba point hadday ka taabato labadan point mar walba kuwaana waxaa la yidhahdaa root yacni macnaha waxay tahay waa xalkii x labadan qiimo waxay noqonayaan x xalkeed mararka qaar waxaa arkaysaa hoostaas ayadoo u fiirinaysa marmarka qaar waxaa arkaysaa iyadoo kor u jeedo marka qaar waxaa arkaysaa iyadoo hal meela ka taabanaysa keliya oo saasoo kale hal nuqto ah marar qaar waxaa arkaysaa iyadoo hal meel intay ka taabanayso hoos fiirinayso mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad aragto iyadoonba taabanayninba akista oo wayda keliya taabanayso marar qaar waxaa arkaysaa saasoo kale iyadoo wayda taabanayso oo hoos fiirinayso kor fiirinayso okay haddaa aragta iyadoo laba meel ka taabanayso waxay leedahay equationkaas ama quadratic equationkaasi wuxuu leeyahay two roots laba xal ayuu leeyahay haddaa aragta isagoo hal meel ka taabanayo waxaad leedahay waxaad raadinaysaa hal meel hadduu ka taabanayo xta wuxuu leeyahay hal root oo micnaheedu waxay tahay hal xal ay x leedahay haddaa aragta iyadoon taabanaynin waxay tahay micnaheedu root dhan ma leh xal ma leh equationkaasi siyaabo kale iyo waxyaabo kale oo dariiqooyin kale way jiraan laakiin yani waxaan ka hadlayaa general xal ma leh saasaa la yidhaahdaa okay marka intaas aan bartay waxaan rabaa aniga inaan ogaado haddana maxaa keenaya inay kor mararka qaar ay fiirinayso iyo mararka qaar ay hoos fiirinayso seen ku kala ogaanaya iyadana waxaa lagu kala saaraa markay kor fiirinayso mar walba haddaa aragta iyadoo kor fiirinayso micnaheeda waxay tahay a ayaa waxay ka weyn tahay zero aada marka la sheegayana waa tan aada x squareta ka horeyso numberka x squareta ka horeyso hadduu ka weyn yahay zero oo micnaheeda ay tahay hadduu balaas yahay wixii 1 2 3 4 oo saasoo kale hadduu yahay koray fiirinaysaa hoos markay fiirinaysana micnaheeda waxaa waaye a ayaa waxay ka yar tahay zero oo micnaha aada x squareta ku hor qoran ama numberka x squareta ku hor qoran ayaa wuxuu ka yaryahay zero ka yaryahay oo -1 -2 -3 saasoo kale wixii number oo minus wata haddaad aragto parabolada waxay fiirinaysaa hoos labadaas waa muhiim ayadana inaad ogaato sidee lagu helayaa marka meesha ay ku eg tahay oo qiimadeeda sidii lagu helayo examplekan ku arki doonaa ayadana dariiqa lagu soo saaray leedahay okay bal marka aan mithaal fiirina marka mithaalka ugu horeeyan qaadanayna wuxuu yahay y waxay la mid tahay
x square minus 4x plus 3. equationkan maxaa waaye waa quadratic equation. marka waxaa la rabaa marka inaan soo saaro rootskii x inaan soo saaro. rootskii x aan kusoo saaraya, waxaad kusoo saaraysaa tanaad fiirinaysaa mucaadaladan ama equationkan lagu siiyey. waxaad meeshan ku aragtaa 3, meeshaan waxaa ku aragtaa minus 4 soo ma. horta sideeda waxaad ogaataa u kala qaado a iyo b iyo c. eedeyda hadda waxay la mid tahay waa wixii x squareteeda horteeda ku qoran waa 1. yani mar walba waxaa ogaataa adiga x keliya haddaad aragto wixii ka horeeya waa 1 lama qoro. laakiin b-deyda waxay tahay waa minus 4 tan, waxaan leeyahay minus 4. c-deyda waxay la mid tahay waa 3 dan. mar walba ayada x iyo wax la socdo male, waa number keligii waa 3. okay, marka waxaan rabaa marka ani inaan soo saaro tan inaan xaliyo. marka waxaan ku xalinayaa, waxaan raadinayaa number, laba number haddaan isku dhuftay siinayo 3, haddaan isku daro ama la kala jaro ku siinayo 4. marka labada number ee ugu dhow ama exactly qiimaha rasmiga ku siinayo waxay tahay waa 3 haddaad ku dhufato 1 waxay ku siinaysaa 3. calaamadahan marka waa inaan aad u keergarayo. calaamadan hadda tan minus waayo tanna plus waayo. waxaa ogaataa marka labada tiro oo ku siin karta marna plus ku siin karta marna minus ku siin karta marna la isku dhufanayo marna la isku darayo, waa laazim inuu mid labadaba ay noqdaan minus iyo minus noqdaan, si kale ood ku helaysa male. marka waxaan leeyahay x iyo x waa la iska sii diyaarsadaa. marka hadda waxaan niri waa 3 lagu dhuftay 1 ayaa waxay siinaysaa 3. marka minus 3 lagu dhuftay minus 1 waxay siinaysaa plus 3 soo ma. markii labadooda la isku darana waxay siinayaan minus 4. marka waxaa waaye waa minus 3 iyo minus 1. waayo waxay la mid tahay kuwan. okay, waxaan rabaa marka aniga labadan aan sheegay lambaradan minus 3 iyo minus 1 markii la xaliyo waxay noqonayaan 1 iyo 3. graafki sii sawiro. graafki waa ka waa 1 2 3. laanno kan hadda markii la xaliyo waxay noqonaysaa 3. mar walba waxaad ogaataa x qiimaheeda meeshan maadaama x ay tahay x axis ay tahay tanna y axis ay tahay, waxaa ogaataa marka meeshaan oo dhan y waxay ku tahay 0 soo ma. qiimayaasha x markaad fiirinayso dhan meeshan 0 y qiimaheeda. tan markaad fiirinaysana x y-da markaad fiirinayso mixwar saadaadka markaad fiirinayso x-ta waa 0. mixwar siinaadka markaad fiirinaysana y-du waa 0. yacni x axis-ka markaad fiirinayso y-du waa 0, y axis-ka markaad fiirinaysana x-ta waa 0. mar walba taa ogow. marka ani maadaama ay inta y 0 tahay waxaan leeyahay 0 waxay la mid tahay x minus 3 lagu dhuftay x minus 1. marka wax aniga isiin kara 0 waxay tahay 0 waxay la mid tahay kuwan soo maha. labadoodan mid unbaa 0 ah, si kaloo ani 0 ay kula mid noqon karto ma jirto. marka waxaan leeyahay x minus 3 ayaa waxay la mid tahay 0 or x minus 1 ayaa waxay la mid tahay 0. midood unbaa 0 ah, markii midda 0dii midda ahayd midda kale lagu dhuftana 0 bay noqonaysaa. marka 0 waxay la mid tahay 0, waa saas macna. haddaan sii xaliyo waxaan leeyahay waa x waxay la mid tahay 3 or x waxay la mid tahay 1. yacni waan wareejiyey, kanaan wareejiyey banaankaan geeyey, kanaan wareejiyey banaankaan geeyey. mid walba markii equasha dhinaceeda kale la mariyo calaamadiisu way isbedelaysaa. kan minus waa plus waxaa ku tagaya, kanna minus waa plus waxaa ku tagaya. hadda waxaan soo saaray marka labadan qiimo maxay yihiin marka waa rootskii equationkii quadratic la siiyey rootskeedii waay. marka labada xalay leedahay maxaa waaye waa 1 iyo 3. okay, qodobka labaad ee la rabo inaan soo saaro, anigu weli graafkii baan sawiraya. waxaan rabaa inaan graafka equationkaas aan sameeyey, equationkaas la siiyey graafkiisa inaan soo saaro. hadda waxaan soo saaray qiimayaasha x-ta. qodobka ku xiga waxaan rabaa inaan soo saaro qiimadii meeshii ay ka laabanaysa. tan oo kale hadda meesha saana meeshan pointigan ay ka laabanayso say ku helaysa. pointigaas ay ku laabanayso waxaad ku helaysaa horta kow waa inaad xadido
waxa la yiraahdo axis of symmetry. carabiga waxaa lagu yiraahdaa mixwar tamaathul. mixwar tamaathulkaas marka anisan kusoo saaray mixwar tamaathulka yani waxa waaye waa wixii labadan jiitimood maalan labadan xariijimood wixii kala baraya labadooda ayaan rabaa aniga. Kana waxaa la yiraahdaa kala barahaasa waxaa la yiraahdaa axis of symmetry. kaasaa marka raadinaya. marka haddaad fiiriso hadda 1 2 3 maxaa kala baraya oo kala baro u ah 2 dana kala baro u ah soomaha. marka meeshaana maxay tahay axis of symmetry. kana maxay tahay axis of symmetry. okay marka x aan soo saaro marka axis of symmetry markaan soo saaro ama mixwar tamaathulki markaan helo oo nuqdadaas 2 ya x waxaan u qaadanayaa inay tahay 2. waxaan leeyahay x waxay la mid tahay 2. marka mucaadaladii ku bedel mucaadaladii lagu siiyey ugu horeysay waxaad ku bedeshaa marka meel walba x waxaad ku bedeshaa 2. waxaan leeyahay marka y waxay la mid tahay waxay la mid ahayd mucaadalada soomaha x square. waxaan leeyahay 2 square minus 4 lagu dhiftay 2 plus 3. 4 haddii 2 laba mar laysku dhufto maxay noqonaysaa waa 4 soomaa. 4 minus laba haddii 4 lagu dhiftona waa 8 plus 3. tan oo dhan waxaa iiga soo baxaya marka y waxay la mid tahay 1. haddaan 4 ku daro 3 waxaa soo baxaysa 7 laga jaray 8 waxaa soo baxaya markaa soo baxaysa marka minus 1 aa soo baxaysa. haa meesha maxay noqonaysaa minus 1. y-deeda maxay tahay waa minus 1. x-teedana maxay tahay waa 2. marka nuqdada ay ka qalloocanayso marka ay ka leexanayso maxaa waaye waxay noqonaysaa pointigaasi waa minus 1. kan waa 0 somaha waa minus 1 oo meeshaana iyo 2 meeshay isaga yimaadaan waa meeshaas. tan maxaa la yirahdaa marka ingiliishka waxaa la yirahdaa vertex. vertexkan waa qimati raasi meeshii wareegii ugu sarreeyay ay ka leexanaysay waa meeshii ugu sarreysay oo meeshii ugu hooseysay ka leexanaysay. haa yani tan markay hoos fiirinayso meeshan waa meeshii ugu hooseysay laakiin markay saan tahay waa meeshii ugu korreysay waa nuqdadii ugu korreysay. pointiga ugu hooseeya oo ay ka leexanayso wuxuu noqonayaa marka waa 2 oo x iyo minus 1. markaasay u sawirmaysaa marka waxay u sawirmaysaa saas. okay way sii socotaa soomaha koray sii aadaysa. ani qodobka kaloon raba inaan ogaado waxay tahay haddana meeshii ay ka goynaysay y ay kaga saas ay uga dul maraysay ayadana see ku ogaanaysaa waxaad ku ogaanaysaa waxaad ogaataa y meesha ay ka goynayso waa taa hadda sheegaynay. waxaan niri meeshan y axis-ka mar walba x waxay la mid tahay 0. marka mucaadaladii intaad soo qaadatid meel walba oo x waxaad ku bedeshaa 0. 0 square minus 4 lagu dhiftay 0 plus 3 maxaa ku soo baxaya y waxay la mid tahay tan waa 0 tanna 0 ka soo baxaya waa 3. marka meeshay ka goynaysana maxaa waaye waa 1 2 3 point 3 ay ka goynaysaa marka saas kor usii baxaysaa marka saasay noqonaysaa. marka aniga muxuu noqonayaa probabilidaydii ama quadratic equationkii la isiiyey graafkeedii saas u samaysmaya marka. darsigan maanta intaasaan ku joojinaynaa. muhiimadiisa ugu weyn waxay ahayd inaad fahanto quadratic equationada sida loo sawiro graafkiisa iyo sida rootkiisa loo soo saaro. rootkana waan sheegnay waa xalka x. intaasaan ku joojinaynaa. aad baad umahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.